السلام عليكم وبندقيني ما ogtahay qaybtii 13 ma ogtahay dayax gacmeedkii ugu horeeyay ee loo diray samada si uu u saadaaliyo cimilada iyo cimilo gooreedda in la oran jiray Tyros. ma ogtahay xornimada iyo madax banaanida Suudaan inuu ka dambeeyay kacdoonkii la magac baxay kacdoonkii Mahdiga ee ay kula dagaalameen ciidankii huwanta ahaa ee gumaysigii Ingiriiska iyo Masaarida ka koobnaa. ma ogtahay shabakadda Arpanet ee ah asalkii internetka in la asaasay 1969kii. ma ogtahay robodka dadka ah inay samaysay oo weli ay horumarinayso wakaaladda DARPA ee Mareykanku. ma ogtahay codka fardaha in la yidhaahdo danan. ma ogtahay webiga Niil inuu u kala qaybsamo laba webi oo kala ah Niilka cad iyo Niilka buluugga ah kadibna ay agagaarka caasimadda Suudaan ee Khartoum isugu yimaadaan. ma ogtahay cilmi ahaan ama saynisku markii uu daraaseen iyo tijaabo ku sameeyay inuu daahiyay in jidhka haweenku marka loo eego qaab dhismeedkiisa iyo shaqadiisa aanu xamilayn hal nin wax ka badan. ma ogtahay dunta xariirta ah inuu sameeyo dirixi. ma ogtahay dalka Suudaan badkiisu inuu dhan yahay 2.5 milyan oo kiiloomitir square una xad la leeyahay 9 wadan. ma ogtahay in vitamin A uu u wanaagsan yahay indhaha iyo aragga. ma ogtahay in dalka Suudaan uu yahay dalka ay ku kulmaan labada Niil ee Niilka buluugga iyo Niilka cadi webigaasina uu dalka u kala qaybiyo laba waaxood oo bari iyo galbeed kala ah.